waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo xogtii ugu dambeysay coronavirus Soomaaliya ilaa iyo saake waxaa la baaray 24 saac u dambeysay oo laga helay cudurka tirada 62 ruux 62daas ruux laga helay cudurka 18 waa dhadig 44 waa lab dhimashada waxaa soo saa'iday 2 ruux ilaahay u naxariisto waxaa ka bogsooday cudurka oo soo saa'iday negative noqday horay positive u ahaa 2 ruux tirada guud ee wadanka inta xaaladood oo ka jirta coronavirus waxay isugu tagaysaa 390 dhimashada guud ahaan waxay isu tagaysaa 18 ruux waxaa ka bogsooday guud ahaan tira 10 ruux sida u jeedaan nambarada maalin walba maalinta ka dambaysa waa soo siyaadayaan dhimashada naftirkeeda waa soo siyaadaysaa walow ay dadka dhimanaya u badan yihiin dad xanuun qabay oo da'doodana ay 50 ka sareyso haddana ruux naga dhintaa waa nagu dhib ilaaha qadaray ee Allah u naxariisto sabr iyo iimaan intii dhimatay Allah naga siiyo laakiin waxaana wada saaran waajib inaan ka hortagno cudurkan sidii loo xakameyn lahaa oo waxyaalihii horay aan ugu wada hadalno ahayd in wacyigelinta la badiyo in la isdhowro in qofka haddii uu dareemo calaamadihii xanuunka uu raadsado takhtar uu wacdo nambarka 449 si loogu wacyigeliyo haddii uu u baahan yahay degdeg in loo qaado isbitaalka la geeyana ambulance loogu diro haddii alla idmo marka waa waajibna wada saaran in bulshada qaybaheedoo dhan ay ka wacyigelisa inay ka tashato in maaragtay banaanka iyo bixidda iyo meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo in lagu dadaalo nadaafadda gacmaha saabuun iyo alcohol iyo qof walba wuxuu heli karo nadiifis ah ilaa iyo 20 seconds oo qofka dhaqo ilbiriqsi in guud ahaan nadaafadda lagu dadaalo iyo in mar walba maaragtay qofka markii uu dareemo calaamadaha xanuunka uu wacdo nambarka uu adeeg caafimaad raadsado wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan khabiirada caafimaadka waxay ku dadaalayaan mar walba inay sare u qaadaan wacyigelinta xanuunka calaamadihiisa mar walba lagu celiyo siyaabaha looga hortagi karo in maaragtay ay muhiim tahay in la isu gudbiyo cudurka waa cudur halis ah u baahan mar walba in maaragtay laga fakaro sidii loo yareyn lahaa Soomaaliya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibkiisa naga haayo bisha Ramadaan fadligeedana aan ku wada dadaalno inaan duceysano oo aan iska wacyigelino mar walba oo la yareeyo isu tagga iyo meelaha ciriiriga ah guriga la joogo laguna dadaalo nadaafadda haddii alle